beri ka hor maalin baraf aad u daran oo ka mid ah bisha Diseembar ayaan ku socday waddo ku taala Nevada. Saacado badan ayuu barafku daayay, hase yeeshee markii fiidkii la gaaray, barafkii si lama filaan ah ayuu u sii cuslaaday una adkaaday. Wuxuu bilaabay inuu ku ururo waddada, sidaas awgeed waxaan bilaabay inaan si taxadar leh oo gaabis ah u wado. Muddo yar kadib waxaan arkay wax aan caadi ahayn oo horay waddada uga muuqda. Qof ayaa taagnaa bartamaha waddada weyn. Markii hore waxaan u maleeyay in indhahaygu ifiyaameynayaan, balse markii aan u sii dhowaaday waxaan xaqiiqsaday inuu qof yahay. Waxaan ku sigtay inaan ku dhufto. Qofkaasi wuxuu gebi ahaanba daboolnaa baraf, laga bilaabo madaxa ilaa cagaha. Waxba si cad ugama aanan arki karin marka laga reebo qaab qofeed cad oo hortayda taagan. Waxaan istaajiyey gaarigii, waxaan hoos u dhigay daaqadda anigoo qaylinaya, maxaad halkan ka samaynaysaa? Si tartiib ah ayuu madaxiisa kor ugu qaaday. Halkaas ayaan ku arkay. Wuxuu xirnaa maaskar cad oo wejigiisa oo dhan daboolaya. Baraf cad ayaa meel walba ka muuqday. Maaskarkiisii caddaana wuxuu si toos ah ii dhex galay qalbigayga. Waxaan isweydiiyey sababta uu waddada dhexdeeda ugu taagan yahay xaaladaas khatarta ah. Anigoo cabsi dareemaya ayaan dib u xiray daaqadda, waxaanan isku dayay inaan ka gudbo. Laakiin si lama filaan ah ayuu labada gacmood kor ugu taagay, isagoo i tusaya inaan istaago. Hal ereyna ma uusan oran. Markaas ayuu bilaabay inuu ciyaaro ciyaar aan caadi ahayn. Wuxuu u dhaqaaqayay sida ciyaaryahan tareen, dhaqdhaqaaqyo habaysan oo sax ah. Waxaan gaariga ku fadhiyey anigoo daawanaya ku dhowaad 30 ilbiriqsi, anigoo isweydiinaya waxa dhabta ah ee dhacaya. Kadib mar kale ayuu gacanta kor u qaaday, markana wuxuu sameeyey dhaqdhaqaaq u eg qof sawir qaadaya, sida inuu rabo inaan duubo ama ka duubo ciyaartiisa. Ma aanan garan karin inuu igu maadeysanayo mise dhab ahaan uu rabay in la duubo laguna baahiyo internetka ama meel kale. Intii fikradahaas maskaxdayda ku wareegayeen ayaan arkay qof kale oo ka soo baxay dhinaca waddada. Si degdeg ah ayuu ii soo socday. Isaguna wuxuu xirnaa maaskar cad, jaakad cad iyo surwaal cad. Ka hor intaanan wax falcelin ah samayn, wuxuu gacanta ku watay aalad u muuqatay mid halis ah. Wuxuuna si toos ah ugu jeediyey ninkii ciyaarayay. Markii hore waxaan u maleeyay inay tahay kaftan ama wax la iska jilayo. Laakiin markii aan si fiican u arkay aaladda, xaqiiqdu way igu dhacday. Cabsi awgeed waxaan si xooggan u riixay gaaska, waxaanan isku dayay inaan baxsado. Barafkii ayaa gaariga ka dhigay mid si dib leh u soconaya. Gaariguna wuu ruxmay, balse hal fikir oo keliya ayaa maskaxdayda ku jiray, inaan ka baxo meeshaas. Ninkii aaladda watay wuxuu isku dayay inuu hortayda istaago, aniguna waan hoos u foorarsaday anigoo sii wada wadista. Wadnahaygu si xun ayuu u garaacayay. Markii aan wax yar sii fogaanay ayaan eegay muraayada gadaal. Labadooduba weli halkaas ayay taagnaayeen, iyagoo i eegaya. Kadib waxaan maqlay dhawaq rasaas. Wadnahaygu wuxuu u ekaaday mid istaagay. Markii aan mar kale eegay, ninkii aaladda watay ma uusan i toogan. Wuxuu toogtay ninkii ciyaarayay. Waxaan arkay ninkii oo dhulka ku dhacaya. Markaas ayuu ninkii rasaasta watay ii jeestay, wuxuuna bilaabay inuu si aan kala sooc lahayn ii rido rasaas. Nasiib wanaag waan sii fogaanay. Waxaan isla markiiba wacay booliiska anigoo uga warramay wax walba. Markii dambe saraakiishii waxay ii sheegeen inaysan helin wax dhiig ah, wax xabado rasaas ah, wax raadad lug ah ama caddayn kale. Taasi waxay la micno ahayd in ninkii ciyaarayay uusan ku dhiman rasaas. Wax walba waxay u ekaayeen been abuur. Habeenkaas wadnahaygu ma uusan degin. Waxaan isku duubay buste, waxaan cabay shaah kulul, waxaana isku dayay inaan isdejiyo. Laakiin hal su'aal ayaa maskaxdayda ka bixi weyday. Sababtee ayay halkaas ugu sugnaayeen qabowgaas daran? Maxayse doonayeen inay igu sameeyaan? Ma waxay qorshaynayeen inay i dilaan mise wax kale oo gebi ahaanba ka duwan? Salaan Wansiye, waxaan leeyahay sheeko naxdin leh oo aan la kulmay anigoo qiyaastii 11 jir ah. Maanta waxaan ahay nin 20 jir ah, balse wixii habeenkaas dhacay weli qalbigayga kama bixin. Markii aan caruur ahaa, weligay ma aanan rumaysan waxyaabaha la yiraahdo jin, ruux ama waxyaabo la mid ah. Mar walba waxaan aaminsanaa in wax walba ay leeyihiin sharaxaad caqli ah. Laakiin khibraddan keliya ayaa iga dhigtay inaan su'aal ka keeno wax kasta oo aan hore u aaminsanaa. Habeen ka mid ah habeenadii caruurnimadayda, anigoo guriga kula seexanaya waalidiintayda iyo xubnaha kale ee qoyska, ayaan maqlay wax aan ilaa maanta sharxi karin. Waxay ahayd ku dhowaad hal habeenimo markii aan si lama filaan ah u toosay. Isla markiiba waxaan maqlay cod aan caadi ahayn, cod u eg gambaleel la ruxayo si joogto ah. Markii hore waxaan dareemay gaajo, balse cabsi daran ayaa igu dhacday markii aan si buuxda u maqlay codkaas. Waan ka baqay inaan sariirta ka kaco. Waxaan isku duubay bustaha, wejigaygana waan qariyey, anigoo si feejigan u dhegaysanaya. Codku wuxuu ahaa mid joogto ah, sida qof si ula kac ah u ruxaya gambaleel. Wuxuu socday muddo ku dhow saacaddan. Aad ayuu u naxdin badnaa. Waxa ugu yaabka badnaa ayaa ahaa in hooyaday iyo ayeeyaday oo dhinacayga ku seexday ay waxba maqlin. Dhammaantood si qoto dheer ayay u hurdeen. Codku wuxuu buuxiyey qolka oo dhan, sidaas darteed ma ahayn wax fudud oo la iska seegi karo. Taasi waxay igu dhalisay fikir cabsi leh, in codkaas uu ahaa mid aniga oo keliya aan maqlayay. Wuxuu u ekaa inuu ka imaanayo barandaada qolka hurdada ee dabaqa sare, balse waan ka baqay inaan hubiyo. Codku wuu sii socday, mana uusan istaagin. Waxaan isku dayay inaan iska indha tiro, inaan maskaxdayda ku qasbo inaan mar kale seexdo, balse wuu igu adkaa. Ugu dambayntii daal dartii ayaan seexday anigoo weli cabsanaya. Waxaan ahay darawal gaadiid dheer mara. Inta badan waxaan wadaa saacado dhaadheer, mararka qaarkoodna xitaa habeenkii. Bilal ka hor, anigoo sida caadiga ah ku jira safar dheer, ayaan ku socday waddo aamus ah. Kadib bartamaha habeenkii, anigoo dhegaysanaya buug dhegaysi ah si aan u iska ilaaliyo hurdo. Ma aqaan inta uu safarku socday, balse hurdadu waxay igu timid si kedis ah, sida tuug habeenimo. Indhahaygu way cuslaadeen, maskaxdayduna way daashay. Waxaan gacanta u fidiyey kursiga rakaabka si aan u qaato cabitaan tamar leh, balse waxaan helay oo keliya qasacado madhan oo isku dhegan. Taasi awgeed waxaan go'aansaday inaan si degdeg ah u istaago meel ii dhow. Muddo yar kadib waxaan ku soo beegmay meel yar oo burbursan, u eg dukaan duug ah. Iftiinka gudaha wuxuu ahaa mid daciif ah, nooca saan mugdi u janjeera. Hawadu waxay lahayd dareen aan caadi ahayn. Ma aanan hubin in dukaanku xitaa
furan yahay, balse calaamada neonka ah ee ay ku qornayd furan ayaa si liidata u iftiimaysay. Markii aan gudaha u galay, gambaleel yar ayaa yeeray, balse cidna kama muuqan counterka. Meesha oo dhan waxay u muuqatay mid aamusan oo dhimatay. Shelfyadu waxay ahaayeen kuwo madhan ama wax yar ku harsan. Qasacado cunto qiiq ah ayaa si khaldan ugu yiilay korka baakado biyo ah oo qaloocan. Dareere cas oo aan la garanayn ayaa ku dheganaa dhanka suunka birta ah ee wax lagu wareejiyo, kaas oo madhnaa. Waxay u muuqatay meel muddo dheer laga tegay. Ujeedadaydu waxay ahayd keliya inaan helo cabitaan tamar leh oo aan halkaas ka tago, balse waxba ma aanan helin. Markaas si lama filaan ah ayaan maqlay cod tallaabooyin iga daba imaanaya. Markii aan soo jeestay, waxaan arkay nin da weyn oo albaabka hore ku xiraya silsilad dheer. Cabsi awgeed ayaan ku qayliyey, fadlan istaag, waan joogaa. Laakiin ninkii wax jawaab ah ma bixin. Wuxuu sii waday xiridda silsiladda isagoo quful ku dhajinaya. Kadibna si lama filaan ah ayuu u damiyey iftiinka. Dukaankii oo dhan wuxuu noqday mugdi buuxa. Anigoo argagaxsan ayaan u orday, waxaan qabtay garabkiisa. Si tartiib ah ayuu ii soo jeestay sida qof horay u ogaa inaan halkaas joogo. Wuxuu isku dayay inuu hadlo, balse codkiisu wuxuu ahaa mid jaban oo dhegaha wax u dhimaya. Markuu afkiisa furay, waxaan arkay carab gaaban oo qaloocan sida in qayb laga jaray. Cabsi iyo caro isku dhafan ayaan si xoog leh u ruxay, anigoo ku qaylinaya inuu albaabka furo. Laakiin wax falcelin ah kama imaan. Wuxuu kaliya sii waday inuu afka kala furo oo isku laabo, isagoo isku dayaya inuu hadlo, balse cod ma soo bixin. Isla markiiba albaab ayaa ka furmay xafiiska shaqaalaha ee iga dambeeyey. Waxaan maqlay tallaabooyin culus oo soo socda. Mugdi awgiis si cad uma arki karin, balse waxay ahaayeen laba nin oo dhaadheer. Waxay ku hadlayeen luqad aanan aqoon, u eg ruush, balse ma hubo. Markii ay iftiinka daciifka ah soo gaareen, wiilow, weligay ma iloobi doono waxa aan arkay. Labadooduba waxaa laga duubay madax ilaa cagaha cajalad bir ah. Mid kasta wuxuu watay mindi qaab wareegsan leh, mid aanan hore u arag. Way is eegayeen, wayna qoslayeen, kadibna indhahooda ayay igu jeediyeen. Maskaxdaydu hal eray oo keliya ayay tiri, waan dhintay. Ninkii dada weynaa wuxuu u dhaqaaqay dhanka counterka, waana markaas markii aan ogaaday in albaabka uusan si buuxda u xirnayn. Anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddaas ayaan si xoog leh u furay albaabka. Waxaanan u cararay bannaanka. Labadii nin ee cajalada duubnaa way ii soo jeesteen, balse ma aysan daba imaan. Waxay keliya istaageen albaabka iyagoo i eegaya. Ninkii dada weynaa hadda wuxuu watay moobil. Labadii ninna waxay iigu yeerayeen codad aan la fahmi karin. Mid ka mid ah wuxuu sameeyey cod u eg qaniinyo ama qaylo xanuun leh. Waxaan ku booday gaarigayga, waan shiday, waxaana si xawli ah uga dhaqaaqay meeshaas. Markii aan ka eegay muraayada gadaal, waxaan arkay iftiinka dukaanka oo si lama filaan ah u damaya, cidna dibadda uma soo bixin. Waxaan wacay booliska. Markii ay yimaadeen, dukaanku wuxuu u ekaa mid muddo dheer xiran. Raggii aan arkayna meelna lagama helin. Markii ay galeen xafiiska dambe, waxay heleen baaldi weyn oo dhulka yaala iyo miis ay ka buuxaan daloolo mindiyo lagu muday. Waxay bilaabeen baaritaan, balse anigu ma garanayo wixii xigay. Waxa keliya ee aan hubaa waa tan iyo habeenkaas. Marna ma istaago meelaha fogfog ee aan la hubin, gaar ahaan habeenkii. Mar dambe marnaba.